Assalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Barnaamijka inta badan waxaan kusoo qaadan doonaa kulamadii xalay la ciyaaray tartanka koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar, iyadoo kulamadii xalay lagu reebay xulul aad awoodooda u sareysa. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesiina share garay barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. ciyaar qaybta labaad xamaasad yeelatay Jarmalka ayaa 4-0 ku garaacay xulka Costa Rica, balse ma caawin in ay u gudbaan wareegga 16 ee tartanka koobka adduunka. sheekada ciyaarta, Jarmalka waxay Costa Rica ugu direen hal gool oo daqiiqadii 10aad saxiixay xidiga Gnabry. Jarmalka inkastoo ay qaybtaasi hore ay wacnaayeen, haddana waxaa dhacayay qaladaad waaweyn oo dhanka daafaca oo Costa Rica ay ku heli kareen goolal kale. Costa Rica kubadda waa laga haystay waxayna ku jireen difaac, halka inta badan kubadda ay maamulinaysay xulka qaranka Germany. qaybta labaad, Jarmalka waxaa ku adkaatay in kubad halisa uu geeyo afka hore, halka Costa Rica ku dhiiradeen in ay hore u sii socdaan oo ayna gaaraan shabaqa xulka qaranka Germany. kubad haysashada Jarmalka mararka qaar waxay gaaraysay 70%, laakiin degdegsiimo aan loo fiirsan ayay ka sheegteen ilaa Costa Rica goolka barbara ciyaarta ay heleen daqiiqadii 58aad, iyadoo ka faa'iideystay daafaca Jarmalka oo si ka badbadisa uga dhaqaaqayay boosaskooda. Jarmalka dhamaadka kubadda waxay gaarsiinayeen aaga goolka kooxda Costa Rica, waxayna isku dayeen in ay goolal kale ay la yimaadaan. kadib ciyaar xamaasad yeelatay Costa Rica, gool labaad ayay Jarmalka ku heleen daqiiqadii 70aad, balse Jarmalka waa bareejiyay daqiiqadii 73aad, waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Kai Havertz oo Jarmalka dib ugu soo celiyay ciyaarta. Costa Rica dhamaadkii waxay heleen fursado badan. Jarmalka iyaga ayaa kubadda maamulay, balse Costa Rica waxay ahaayeen geesiyaal ilaa Jarmalka goolka saddexaad ay heleen daqiiqadii 85aad. isla Kai Havertz ayaa saxiixay. Jarmalka ayaa iska maamulinayay ciyaarta, inkastoo markii dambe ay keeneen goolka afraad ee ciyaarta ayay waxay kusoo ilaatay 4-2 Jarmalka ku badiyay, waxayna caawiyeen Spain oo Costa Rica haddii ay badina lahaayeen way hari lahaayeen kulankani. Japan ayaa mar kale qarxiyay lama filaan weyn kadib markii ay garaaceen xulka qaranka Spain kulan xiiso lahaa oo ka dhacay garoonka Khalifa International Stadium. kulanka ayaa ahaa mid xulka Spain maamulinayay ciyaarta, iyagoo xitaa gaarayay 80% haysashada kubadda, isla markaasna Japan u diidnaa kubadda inay cagtooda ay gasho. xulka Japan ayaa ciyaarayay weerar rogaal celis, iyagoo Spain u daayay in kubadda ay haysato xilli qaybtii hore si weyn ugu dhibaatoodeen kulanka. xulka Spain ayaa daqiiqadii 11aad dhaliyay goolka koowaad, waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Alvaro Morata, kaasi hoggaanka u dhiibay xulka qaranka Spain, ciyaartana ka dhigay 1-0. xulka Japan ayaa wax halisa gelina goolka xulka Spain xilli ay ku dhibaatoodeen in ay wax fursad abuuraan qaybtii hore, laakiin qaybtii dambe ayuu xulka Japan wacdaro ku bilowday, iyagoo doonayay in ay ciyaarta ku soo laabtaan isla markaana ay dhaliyaan goolka barbaraha ciyaarta. daqiiqadii 48aad ayaa xulka Japan dhaliyay goolka barbaraha, waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Ritso Don, kaasi oo ciyaarta ka dhigay barbara 1-1. ciyaartoyda Japan ayaa si la wajibaaray dadaalka ay ugu jireen in ay ka badiyaan xulka qaranka Spain, waxayna soo bandhigeen qaybtii dambe ciyaar aad u fiicneyd. xulka Spain ayaa mooday qaybtii dambe in iyaga aan ka soo bixin qolka lebiska, isla markaana aan garoonka soo gelin. daqiiqadii 51aad ayaa xulka Japan dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta, waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo Tanaka, kaasi oo ciyaarta ka dhigay 2-1 oo Japan ku hogaaminaysay ciyaarta. wixii intaasi ka dambeeyay xulka Japan ayaa daafac galay, iyaga oo weerar rogaal celis ku qaadayay xulka Spain. waxaa sidaasi ku dhamaatay ciyaarta oo xulka Japan iska xaadiriyay wareegga 16 koobka adduunka, mar kalena ka yaabsaday adduunka.